waxaa xafladan ka soo qayb galay oo na kala kiciyay alfanaan IMK oo ah fanaan saameyn ku leh baraha bulshada gaar ahaan magaalada Kismaayo. Assalaamu calaykum asxaabteeda soo dhawaada baraha bulshada aan saaxiibada ku nahay. Maanta xageen jooga hoteelada ugu shidan magaalada Kismaayo lagu qabta xafladaha arooska Hotel Rotanyo. Qofaan garanin ma jiro waa maya. Xafladan waxaa ka soo qayb galay xibnooyin aad iyo aad u muhiim ah oo mas'uuliin ah oo kamid yahay taliye James oo Jamaal America uu jooga asagoo magaca ku shukaansanaay American ka imaaday America laga soo tarxiilay. Intaas waxaa noo sii dheer oo xafladan kala kiciyay alfanaan IMK kusoo bandhigay heesooyin aan innaba caadi ahayn. Haddii magaalada lagu qaban lahaa tartan kaalinta koowaad uu gali lahaa IMK. Ninka raggaar libintiisa waa loo qiraa ee lama xaqiro. IMK cod iyo laxan laguma gaaro. ciyaarna iska badaa bal fiiri garbaha laga ciyaaraya dumarka deynaasaha ruuxi jireen meeshan garabka looxiisa laga ciyaaraya ka waran sidaan wada ognahay IMK wuxuu ka heesaa xafladooyin badan iyo aroosyo badan ayuu ku soo bandhigaa heesooyin ana su'aashan isweydiinaa waxay tahay xafladaha uu ka heeso alfanaan IMK lacag muu ku qaataa heesahaas ama si free ayuu ugu qaadaa siday ahaataba waa fanaan hal abuur leh ninka raggan waa in la dhiirigeliyaa anaga haddaan nahay qoomiyadaha jirar weyne waxaan naqaanaa inaan isbahdilno balse fanaaniin badan oo heesa ayuu ka cod fiican yahay oona ka fikir wanaagsan yahay in weliba aan hees la isku dhiirigelinin ba siday ahaato waxaan ku leeyahay alfanaan IMK guul iyo gabanimo cadowgaaga hajabo fadlan hadduu muuqaalkan ku soo gaaro subscribe like share waxaan idin leeyahay hambalyo guurkiina guur qeer gurigeena gurinagi waxaa idin bilaawatay nolol safarkeedu aad iyo aad u dheer yahay waxaana ku guuleysan kara safarkaas laba qof oo isku sabirtay waxaan rajeynayaa inaad noqotaan laba qof oo nolosha isku fahmay asxaabay idinkana wax waliba idin la wadaagaaye maxaad ku haysataan YouTube-kan subscribe iyo daawashada xaqiina waaye farxad iyo dhiirigelin ayay ii tahay